daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo wararkii ugu dambeeyay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo garoonka muqdisho in badan lagu xayiray isla markaasina gabi ahaanba diyaarad ay raaceen ayagoo hawada saaran la soo celiyay halkaasina la sheegay in raadeerka laga dansaday xiisadii ayaa aad u kacsan hase yeeshee mahad salaad oo asigana si aad u cambaareeyay cabdiraxmaan ceynte wasiirkii hore ee qorsheynta asna si aad u cambaareeyay ra'iisul wasaare xasan caqayre ayaa xilligaas la leeyahay asigana garoonka ayuu ku sugnaa isla markaasina asigana safar balweyne ugu socda ayuu ka baaqday hase yeeshee waxaa la sheegaya inay hawada sare laga soo celiyay madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya isla markaasina iminka si toos ah u duulaan wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegaya in la diiday inay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif axmed ay ka dhoofaan garoonka iyaga oo ku sii jeeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maamulka garoonka ayaa labadan mas'uul iyo xubnaha wafdigii halkaas ka socday ee madasha qaran ku wargeliyay inaysan diyaaradooda ka duuli karin garoonka diyaaradaha aadan cad isla markaasina sabab la'aan loogu sheegay wafdiga madaxweynayaashii hore ayaa xilligaasi ku sugnaa qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha isla markaana loo diiday safarkoodii ku wajahnaa Beledweyne isla markaasina halkaasi buuq iyo caqabad weyn ka dhalatay garoonka ayaa waxaa sidoo kale la filayay inuu ka dhoofo ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo isna ku sii jeeda magaalada Beledweyne hase yeeshee Beledweyne namada deeqdo ayuu yiri xasan sheekh oo ninka la yiraahdo xasan cali khayre ayaa isagana ugu dambeyntii ka haray inuu Beledweyne dego maadaama ay madaxdani halkaas ku sii jeedo maamulka garoonka ayaa ayaa laga soo xiganaya in sababta ay tahay in madaxweynayaashii Hirshabelle uu ku soo wargeliyay wafdigani aan loo soo deynin Beledweyne halka marna ay sheegayaan inuu jiro amar ka yimid madaxda sarsare ee dawladda sida ra'iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina asigana doonayay inuu Beledweyne u duulo hase yeeshee dadka siyaasadda falaqaya ayaa la leeyahay xasan cali khayre asigoo doonaya inuu duulo ayuu rabay inuu ayaga hakiyo oo asiga oo xaggaas u sii duulo maadaama ay Beledweyne wada daaqin oo kaliya oo ugu talagalo asiga hase yeeshee warar kala duwan ayaa iminka ka soo baxay xubnaha ku dhow xafiiska ra'iisul wasaare ayaa warbaahinta u sheegay in Beledweyne ay ka heleen warar sheegaya in garoonka ay biyo dhaafiyeen oo aysan diyaaradda ka degi karin isla markaasina halkaasi khatar tahay si kastaba bixitaanka khayre iyo joogistiisa ayaa kala cadeyn doonta in arrintan ay tahay dhibaato ka taagan garoonka Beledweyne iyo inta ay tahay xanibaad la saaray madaxdii hore ee dalka soo maray dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo si ba'an u weeraray isla markaasina sheegay in madaxdii hore shirqool loo dhigay isla markaasina la doonayay in hawada sare lagu dilo hase yeeshee shirqoolkani ayuu sidan u dhigay xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo inta badan garab la ah madaxdii hore ayaa ka hadlay khayraadii maanta lagu soo rogay madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo garoomada diyaaradaha Muqdisho iyo Beledweyne hase yeeshee xildhibaan mahad salaad ayaa sheegay in muddo 30 daqiiqo ah wafdigaasi lagu xayiray hawada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli ay hawada ku sii jiraan diyaaradii sidii madaxweynayaasha ayaa hadda ka degtay magaalada Beledweyne diyaaradda ayaa loo diiday markii hore inay ka degto airportka muddo 30 daqiiqo ah oo ay hawada ku sii jirtay kadib ayaa hadda loo fasaxay in ay degto ayuu yiri mahad salaad oo qoraal dheer ku soo qoray bartiisa Facebook ah in badan dawladdu ku cambaarayo sidoo kale xildhibaan mahad salaad ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inay ahayd shirqool la doonayay in lagu dhibaateeyo madaxdii hore ee dalka soo martay sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa ku eg shirqool la doonayay in lagu dhibaateeyo madaxweynayaashii hore ee dalka safar gargaar bini'aadanimo ugu socday magaalada Beledweyne oo bulshada ku dhaqan dhibaatada ka soo gaartay fatahaadii webiga ka dhan ahay magaaladaasi isla markaasina halkaas bini'aadanimo ugu socday hadalka xildhibaan mahad salaad ayaa imaanaya xilli maanta garoonka Muqdisho lagu xayiray wafdigaasi iyagoo kadibna la sheegay inay diyaaradoodii loo diiday inay ka soo degto garoonka Beledweyne kadib markii laga dansaday raadeerkii hagi lahaa sida uu sheegay xildhibaan mahad salaad duuliyaha diyaaradda ayaa la sheegaya in kooxda raadeerka ee hagta diyaaradda ay ku wargelisay in diyaaradda ay soo degi karin arrimo la xiriira roobab magaaladaasi ka daa isla markaana dib ugu celiyay diyaaradii magaalada Muqdisho hase ahaatee madaxdii hore ee dalka oo diyaaradda saarnaa ayaa diiday inay diyaaradooda dib ugu celiyo magaalada Muqdisho arrintan ayaa tahay mid siyaasadeysan waxaana markii diyaaradii dib u laabatay duuliyaha uu ku qasbanaaday
inuu haddana laabto oo ka dogo magaalada Beledweyne oo arrintaas la leeyahay mid khatar ah maadaama garoonka ay dhiiqayeen hase yeeshee madaxdii ayaa ku qabtay waxay dhaheen haddii aan rabno aan ku dhimanay diyaaraddu waa inaad Beledweyne ka dejisaa Beledweyne Allah hayo ayay iminka la leeyahay halkaasi ayay lagu soo dhaweynaya Cabdiraxmaan Caynti ex wasiirkii hore qorsheynta madaxdii hore ee ku tilmaamay daandaansi siyaasadeed in lagu sameynayo madaxdii hore wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynti ayaa si xooggan u cambaareeyay xayiraadii maanta lagu sameeyay madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo siday gargaar bini'aadanimo oo 200,000 oo dollarka Mareykanka ah u wada shacabkaasi Masar Caynti oo qoraal kooban ku soo saaray ayaa soo saaray in xanibaadda madaxdii hore ee ay tahay daandaansi iyo bahdilaad sida uu hadalka u dhigay wasiirkii hore sidoo kale wuxuu tilmaamay tallaabadani ay muujinaysa kalsooni la'aanta xukuumadda nabad iyo nolol ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo daandaansigan sii ballaarinaysa wasiirkii hore ee qorsheynta ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka inay ku tumanayaan dastuurka iyo shuruucda u taala dalka isla markaasina ay tahay wax laga xumaado xanibaadda madaxdii hore waa daandaasi iyo bahdilaad waxayna muujinayaan kalsooni la'aanta madaxda nabad iyo nolol ee ku tumashada dastuurka iyo horumarinta fidnada ficil celinta ugu habboon waa in lala tiigsadaa garsoorka si ilbaxnimada leh looga dhidhiyaa fidnada nabad iyo nolol ay ku baaqayso waa laga yimid ayuu yiri wasiirkii hore ee Caynte hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo markii labaad xayiraad lagu sameeyay wafdigii hogaaminaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh inkastoo markii dambe la fasaxay waxaana ujeedadeedu ay tahay kaliya qiimeynta xaaladda ka jirta gobolka Hiiraan oo uu fatahaad xooggan ka geystay halkaasi isla markaasina ay dad bini'aadanimada dad aad u fara badan halkaasi ka barakaceen hase yeeshee iminka ayaa la leeyahay waa ay ka degeen oo halkaasi ayaa lagu soo dhaweynayaa wufuudka kala dirsan sidoo kale warar kale ayaa soo daraya warar dheeraada oo ka soo baxaya Xasan Sheekh oo iminka halkaas ka degay wararka naga soo gaaraya iminkadan aan hadlayno magaalada Beledweyne ayaa sheegaya inay halkaasi ka degtay diyaaradii siday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay sida aad sawirada ku aragtaan diyaaradda oo markii hore loo sheegay inaysan Beledweyne ka soo degi karin lagana dansaday raadeerkii hagi lahaa ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday halkaasi isla markaasina boqolaal qof oo shacab ah iyo kumanaan mas'uuliyiin ayaa halkaas ku soo dhaweysay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen xubno ka tirsan wafdigaasi oo hadda gaaray Beledweyne oo wada hadal dheeraad kadib ayaa diyaaradii loo ogolaaday inay ka soo degto garoonka diyaaradaha Beledweyne intii uu waday hadalka socday ayaa la sheegayaa inay diyaaraddaasi taagneed hawada lamana helin weli wax cid fududeysay inay halkaasi ka degto safarka Beledweyne madaxweynayaashii hore ee dalka u soo maray ayaa maanta la kulmay culays badan oo uga imaanaya dhanka iyo dawladda iyadoo markii horeba lagu xayiray garoonka diyaaradaha aadan caddi markii dambena hawada lagu xayiray hase yeeshee iminka waxay dhex maquunanayaan magaalada Beledweyne oo ay u kurgalayaan xaaladda bini'aadanimo halkaasi ka taagan hase yeeshee xaaladda siyaasadeed waa washwash oo iminka dowladda federaalka Soomaaliya horey xayiraad u saartay Sheekh Shariif ayaa iminka markii labaad loo celiyay hase yeeshee xanaaqi ayaa ku soo laba jibaarmay hase yeeshee halkaasi ayaa laga sugayaa bal ayaga sida waxay u dhaceen inay u soo hadlaan waa hubaan inay shir jaraa'id qaban doonaan labadii madaxweyne hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo laga yaabo inay aad u xanaaqsan yihiin hase yeeshee arrintan ay daadaansi tahay sidoo kale warar kale oo xiiso badan ayaa soo dhacaya iska soo daba dhacaya dhanka kale haddii aanu eegno waxaa iminka asigana ka hadlay xildhibaan Fakhi oo asigana si ba'an u weeraraya dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee daawadayaal nala jooga oo wararkayna xiga indhaha ku haya oo gomboleelka furta si aad u aragtaan notificationka iminka marka waxaan soo gelinaa hore ka soo dhacaan